السلام عليكم. kusoo dhawaada mowduuceena maanta 10 wadan ugu dhaqaalaha badan adduunka kaalinta koowaad wadanka Mareykanka inkastoo ay wajahayeen koritaan yari xagga dhaqaalaha haddana wali wadanka Mareykanka waa wadanka ugu dhaqaalaha badan caalamka hanti dhan 20 trilyan taasoo ka dhigaysa 20% dhaqaalaha adduunka dhaqaalaha wadanka ayaa ku tiirsan qaybta adeegyada iyadoo shirkadaha ugu waaweyn wadanka ay ka shaqeeyaan dhinaca adeegyada sida shirkadaha Apple, Microsoft, Google, YouTube iyo Facebook waxaana la saadaalinayaa in dhaqaalaha wadanka uu kordhi doono 2.5% sanada 2019 halka uu kordhi doono 2020 1.7%. kaalinta labaad wadanka China kadib muddo 40 sano oo uu ku soo jiray wadanka China horumar degdeg ah iyo sare u kac dhaqaale oo ballaaran iyadoo celcelisaan uu kordhayo 10% dhaqaalaha wadankaasi 40 sano ee la soo dhaafay taasoo ka dhigtay dhaqaalaha labaad ee ugu weyn caalamka hanti dhan 14 trilyan taasoo ka dhigaysa 14% dhaqaalaha caalamka oo dhan tan iyo sanadii 1978 markii uu wadanka sameeyay dib u habeen dhaqaale wadanka wuxuu ku naaloonayay horumar dhaqaale oo baaxad weyn waxaana la saadaalinayaa in sanadka 2030 uu dhaafi doono dhaqaalaha wadanka Mareykanka. kaalinta saddexaad Japan waqti xaadirkan wadanka Japan wuxuu ku jiraa kaalinta saddexaad wuxuuna haystaa hanti dhan 5.2 trilyan ka hor 1990 wadanka Japan wuxuu la mid ahaa sida wadanka China ee maanta wuxuuna ku naaloonayay sare u kac dhaqaale iyo horumar ballaaran sanadihii 1960 70 iyo 1980 si kastaba ha ahaatee dhaqaalaha wadanka ayaa burbur sameeyay wixii ka dambeeyay sanadii 1990 wuxuuna bilaabay inuu sameeyo hoos u dhac iyo koritaan la'aan. kaalinta afaraad Germany 10 sano ka hor dhaqaalaha burburkii ku dhacay dunida sanadii 2008 dhaqaalaha wadanka wuxuu ahaa mid dhexe isagoo sameynaya koritaan caadi ah balse kadib musiibadii dhaqaale ee ku dhacday dunida sanadii 2008 dhaqaalaha wadanku wuxuu noqday mid gaabis ah iyo hoos u dhac uu ku socdo sidaas oo ay tahay wadanka Jarmalka waa wadanka ugu dhaqaalaha badan qaaradda Yurub hanti dhan 4.2 trilyan. kaalinta shanaad Ingiriiska wadanka labaad ee ugu dhaqaalaha badan Yurub ahna hoyga horumarka iyo tiknoolajiyada casriga inkastoo dhaqaalaha wadanka uu u kordhay si gaabis ah 10 sano ee la soo dhaafay haddana waxa lagu qiyaasaa dhaqaalaha wadankaasi hanti dhan 3.2 trilyan waxaana la saadaalinayaa in dhaqaalaha wadanka uu kordhi doono 2% sanada 2019. kaalinta lixaad Hindiya wadanka ugu weyn caalamka ee dimuqraadi ah ahna wadanka labaad ee ugu shacabka badan caalamka kadib dhaqaale koror baaxad weyn ee uu sameeyay wadanka 15 sano ee la soo dhaafay waxay taasi ka caawisay inuu kaalimaha hore ka soo galo dhaqaalaha adduunka waxaana lagu qiyaasaa dhaqaalaha wadanka 3 trilyan waxaana la saadaalinayaa in sanada 2020 uu dhaafi doono dhaqaalaha Ingiriiska. kaalinta toddobaad Faransa wadanka loogu dalxiiska badan yahay caalamka ahna quwadda ugu weyn Yurub ee ka madax banaan faragelinada Mareykanka dhaqaalaha wadanka waxa lagu qiyaasaa 2.8 trilyan waxaana la saadaalinayaa in 5 sano ee soo socota uu kordhi doono dhaqaalaha wadankaasi qiyaas dhan 2.5%. kaalinta sideedaad Brazil wadanka shanaad ee ugu weyn caalamka ahna wadanka shanaad ee ugu shacabka badan caalamka sanadii u dhaxeeyay 2005 ilaa 2012 dhaqaalaha wadanka wuxuu u kordhayay si xawaare sare leh wuxuuna ku dhawaa inuu dhaafo dhaqaalaha Ingiriiska oo uu kala baxo kaalinta shanaad balse dhaqaalaha burbur ku yimid wadanka wuxuu sameeyay hoos u dhac weyn tan iyo sanadii 2012 dhaqaalaha wadanka waxa lagu qiyaasaa hanti dhan 2.2 trilyan. kaalinta sagaalaad Talyaaniga hogaamiyaashii hore ee Yurub kuwaas oo xukumayay qaaradda muddo qarniyaal ah ahna markaska diineed ee ugu weyn kaasoo ku yaala Roma kadib sanooyin badan oo wadan ku jiray dhaqaale burbur iyo dawlad xumo waxaa la rajaynayaa inuu ka soo kabsado xaaladaha sanadaha soo socda waxaana lagu qiyaasaa dhaqaalaha wadankaasi hanti dhan 2 trilyan. kaalinta tobnaad Canada wadanka labaad ee ugu weyn caalamka kaasoo ay ku yaalaan 40% keymaha dunida ku yaal dhaqaalaha wadanka waxa lagu qiyaasaa hanti dhan 1.6 trilyan